dagaalka maanta la wadaa ma aha go'aankii habar jecel ay ku heshiisay ma waa dagaal siyaasadeed oo dawladdu wado ama ay ku leedahay waa dagaal ujeedooyin iyo danadeel laga leeyahay dagaalkaasi waa kii 49kii oo isagoo sidiisii soo noqday oo raggii watay berigii hore iyo imikana wata oo qolihii berigii hor yaacayay ba hor yaacaya walaalaha dhulbaante beesha aanu diriskanahay marar badan bay nabadgelyo ku baaqeen uqaashooda ku baaqay culimada ku baaqay garaadada ku baaqay waa wax wanaagsan nabadu waa noloshii waxaan leeyahay iyagana de magaala gubteen oo mashaakilka ugu weyn ee labada reer dhaxyaalaba waxaan oran karayaa magaaladaas ficilka ka dhacay ayaa qayb weyn ka de wax la idinka doonayaa inay nabadu idinka dhab tahay de ficilkeedii inay idinka muuqato waxaan tolkay leeyahay adduunyadu horumar bay ku tartamaysaa iyo ma fiican bay idin la tahay miyaanay ka fiicnayn colaad inaynu qorilowd iyo oog iyo meelaha iyo buqdharkayn iyo meelaha la midka inaynu ka dhigno dekada qalalan aynu geyno raashinka iyo badeecada aynu xoolaha iibsano oo halkaynu dhaawaca kala guri lahayn miyaanay ka fiicnayn inaynu lacagta kala guro iyo badeecada laygama baranin inaan warbaahinta aad iyo aad uga hadlo laakiin xilliga ay ii muuqato inay dee waajib tahay in la hadlo ama wax meesha yaal oo u baahan in laga hadlaa inay yaalaan waan ka hadlaa waxa qorshahaygu aniga uu ku dhisan yahay marka aan arko maslaxadda guud wax dhibaato ah oo ku soo fool leh ama wax khalkhal oo galay intii taalkayga ah waxaan shiraa wixii aad ka qaban karayso ka qabo laygumana baran inaan ahay ragga maslaxadooda ama dantooda yar ka hormariya danta ummadda boqolaal hawlood baan soo joogay intaasoo nabadood baan ka soo qayb galay oo ah nabadihii waddanka lagu dejiyey anigoon suldaan ahayn baa nabadda dhul badan oo culus iyo kaalmo culus aan ka soo qaatay iyo ummadda maaragtay u shaqaynteeda marka waxyaabo ii muuqday darteed baan u qabtay ama ugu arkay shirkani inuu yahay daruuri inaan shir jaraa'id qabto oo aan ummadda wixii tala aan ku birin karaya nasiixo aan soo jeediyo marka ugu horeysa markaan ku horeeyo shirkii beelaha habar jeclo ay ku qabteen magaalada Burco ujeedadiisu waxay ahayd in beeshu tala ka qaadato dhibaatooyinkii ka dhacay xuduudda u dhaxaysa beesha iyo beesha dhulbahanti ay deriska yihiin gaar ahaan weeraradii ka yimi dhinaca hawshaasoo ka dhalatay weeraradii ka yimi dhinaca beesha dhulbahante ama boqdharkayn ha soo weeraraan ama ha soo weeraraan maaragtay qorilugud yaa waxay u aragtay beeshu inay lagama maarmaan tahay hawshaa in laga tashado go-aankii beeshu ay qaadatay wuxuu noqday inay beeshu degaankeeda iyo maslaxadeeda iyo dhulkeeda ay difaacato xaqna ay u leedahay sharciga islaamka iyo acraafta caalamiga mid walibana uu xaqaa siinayo iyo inaanay beeshu duulaan ku ahayn beesha dhulbahante dhulkeeda iyo dhiigooda midna macodii shirka intaas ayaa qodobkii ugu muhiimsanaa ee colaadda waxyaabihii laga qaatay ka mid ahaa oo go-aankeedii noqday waxaa soo raacay dee diyaargarow wax la yidhaahdo had iyo jeer markay dhibaata timaado dhacdo diyaargarow baa la galaa waxaa ku jiray go-aamada inay habar jeclo diyaargarowdo oo ay wixii isku difaaci lahayd diyaarsato dee macnaheedu taas markaan go-aankii shirka kaga gudbo
hawshii shirka baa ii muuqatay iyadoo si kale dadka qaarkii ay u akhriyayaano arrinkii laga dhigay sidii shirkiiba wax dagaal ka soo baxay waxyaabaha kale ee iyada qudheedu igu dhaliyay arrinta waxaa ka mid ah hadalkii suldaanka beesha suldaanka guud suldaan cabdillaahi suldaan cali muuse anigu ma arkayo hadalkii suldaanku inuu ka duwanaa go-aankii beesha laakiin dee suldaanku wax iska celiya buu waxa iska celiya waa istifaaca baan dee anigu aqaana istifaac weerar taga oo dad soo laaya ninkii idin dila buu yidhi ninkii idin daayana daaya waa ka xumahay in go-aankii suldaanka loo duway dagaal suldaanku uu iclaamiyey oo yidhi dagaal ha la galo hala weerar tago dagaalkaasi ma jiro hala weerar tago cid ha lagu duulo waa se laga yaabaa hadalku dee waa margii dadka qaarkood inay waxyaabo kale ka fahmeen laakiin odag suldaanka hadalkiisu caynkaasi u dhacayay go-aanka beesha ayuuna suldaanku dee ka turjumayey waayo markay beeli tashato suldaan iyo kayrkii ama siyaasi nin walba wuu ku khasban yahay go-aanka beeshu qaadatay inuu qaato oo uu isaga ku shaqeeyo ayaa qof walba mar haddii shirweyne dhacay uu ku khasbay taasna inaan intaa toosintaa raaciya ayaan doonayey markaan intaa kasii gudbo colaadda bariga aanu dhaadhaco intaanan gelin waxaan ka horraysiinayaa in yar hordhaca sideeda gobollada barigu dee dagaalku hadda kamuu bilaabmin mudduu jiray markii hore wuxuu ka socon jiray dee jiidda laascaanood iyo eryadeeda ayuu ahaa markii dambena wuu soo dhowaaday oo xuduuddan habar jecel dhulbaantu iska galaan eryadan og iyo qorilugud ayuu yimi sideedabana gobollada barigu dagaalkaasi saamayn xun oo hore ayuu ku yeeshay wuxuu keenay in hay-adaha iyo dadyowga aadka dee dhaqaalaha bixiya dadka caawiya xooggoodu aanay uba hoyeyninba xagga oo la odhan karo dowladnimaduba xooggeedu miisaankeedu sheekh ayuu ku egaa saamaynta uu dagaalkaasi keenay waxaa ka mina in dhaqaalihii uu burburay oo uu tegey meel aad iyo aada u hooseysa ilamaaya layga sheekeeyey maalin dhaweydin qolo tijaaro habar jecloo dukaanlaydu isu waraysteeno unuu yidhi dhowr dukaan baan leehayoo shalay baan furayoo $15 baa laiga iibsatay yacni sidaan odhan masaariifta shaqaalahan ku bixin yani waxay ku tusinaysaa siduu suuqii waxiibsigu aad iyo aada hoos ugu dhacay sidoo kale waxa meeshaba aada mooddaa inaanay horumarka yaalla galbeed wax badan oo ka midi sida la ogyahay ma jiraan bari colaadaasi hadday sii faaftana waxay keeni doontaa hay-adaha yareer ee dadka xoogaaga yar raashinkaa siiya ama wax siisiyaa dhammaantood inay ka soo qaxaan sidaa loo xidhay shidaalkii oo dad badani ay shaqo ka heleen erya xood laga waday mashruucii shidaalkee la bilaabay waa la xidhay waxaa loo xidhay nabadgelyo daro hay-adaha na waxay ku khasbanaanayaan inay iyana ka soo baxaan oo dadkii ay quudin jireen ay dayacmaan halistaa iyo haliso waaweyn oo kale oo ka iman kara ayaa halkaa ka muuqda sidaas darteed waxaa looga baahan yahay aynu ugu baahan nahay in caqligeennu uu shaqeeyo dagaalka meesha laga wadana ee iminka ka jira markii hore dagaal siyaasadeed buu ahaa dagaalka siyaasadeed
waqti aad u kooban buu ku dhammaan karaa cugdad badanna ma reebo sida la og yahay laakiin waxaad moodaa dagaalka meesha laga wadaa imika in qorshihiisa la wadaa inuu u eg yahay dagaal qabiil in arrinkii loo rogo oo dagaal dhulbahante ama daaroodii u dhaxeeya habar jeclo laga dhigo dagaalkaasi waa dagaal aad iyo aad u khadiir ah waxaan ku wargelinayaa beeshayda oo aan u sheegaya waxa idinka idiin dana oo Soomaaliland u dana oo waddankeenna u dana oo ragga inaga xidhan reer Soomaaliland ciidanka xulkiisa u dana oo mustaqbalka iyo dhaqaalaha u dana oo nolosheenna u dana waxa weeyaan in nabad la helo haddaynu ka soo sheekaynay oo dhaqaalaheenu meel hoose marayo haddaynu dagaal qabiil oo meelu ku socdo aan la garanayn hadda gallo iyo xilli uu dhammaanayo waxa weeyaan macnaheedu inaynu waddadii halaag gacagta saaray wax badan baan weliba iftiiminaya habar jeclo waxaa la doonayaa dagaal qabiil oo riiq dheeraada in la geliyo dagaalkaasi kama duwana kii 94kii bal aad buu ugu egyahay kii 94kii 94kii 7 casho koor waanigii ka hadlay halkii dacwadu shaarica u dheelkii Badar waxaan ku yidhi hadduu raggaasi hadur noqon doono berito marka dagaalku dhammaado oo waxa aynu maal leenahay dagaalka ku baaba'ay hadur noqon doonaan oo wixii dad iyo dunyaynu ku weyna hadur noqon doonaan maanta inaga joojiye wati leela yaabay awgeydeen waa kiina maalintii beereed waa kii hadurka ku dambeeyey dad iyo rag iyo xoolo wixii ku lumay waynagii ka qaadanay in laga soo qaado kakac iyo hadur dagaalka maanta la wadaa ma aha go'aankii habar jeclo ay ku heshiisay ma waa dagaal siyaasadeed oo dawladdu wado ama ay ku leedahay waa dagaal ujeedooyin iyo danadeel laga leeyahay waxaynu ogeyn habar jeclo dee taladeeda inay iyadu lahayd qabaa'ilka reer Somaliland baynu ka mid nahay qabaa'ilka cuqaasha iyo odayaasha u taliya riixidda dagaalka laynagu riixayo qabiilka waxaan anigu arkaa inuu 3 ujeedo leeyahay ujeedada koobaad waa in horta inaga dab layna geliyo ma filaynin cadaawadda inta laagna inay dawladdu inoo qabto layna gubo qodobka ku xiga waa in damarkaynu dhulbahanta layno inana raggeenna xidhan baa dee dhici karta in la laayo raggeennaasi inaanay soo bixin albaabka lagu xidho iyo in dawladdu ay iska joogto la yidhaaho dagaal baa bariga ka socda waddankii bar baa dagaal ka socdaa wax doorasho la yidhaaho ma jiro anigu idin sheegi maayo been sirri daari baan ay wax badanna waa ogahay dagaalkaasi waa kii 94kii oo isagoo sidiisii soo noqday oo raggii watay berigii hore iyo imikana wata oo qolyihii berigii hor yaacayay baa hor yaacaya haddii waxaynu u baahannahay inaynu wixii raggeenu ku baxsanayo ee raggeenna aynu ku badbaadin karayno nabada oo carruurteenna iyo mustaqbalkeenna ay ku badbaadinayno nabada oo tijaaradeenna iyo nolosheenna aynu ku badbaadinayno inaynu isweydiinno habar jeclo tala isugu noqoto oo dagaal aynaan innaga inoo qorshaysnayn oo go'aankeenni ahayn oo qabiil inaan layna gelin baan tolkay ugu baaqaya kelmad yar gobolladu waa tartamayaan horumarka waa la iskala dagaalamaya haddii la doono waddada qorilugud iyo meesha la yidhaaho wadaamago ee midowga Yurub kharashkeedii bixiyey lagu dhisi lahaa ninka ii diiday ee igu qabsaday ee isagu mashruucan dagaalka isagu leh
raba inuu dadkayga intuu ku guuro gubo oo aakhiradeedii adduunkoodaba baabi'iyo haddaan ka yeelaana nacso wey waddada faranjiga oo nimankaa waxaan leeyahay cafwan nimankaa reer yurub ay ii samaynayaan ninka ii quuri waaye waddada yara intaa leeg masaafada intaa leeg waa laga yaabaa hadalkaygu inuu kulul yahay wax badan oo aan ogahay oo munaasab aan ahayn baa dee ii muuqda waxaan ka talinayaa maslaxadda dadkayga waxaan diyaar u ahay dadkayga maslaxaddiisa inaan naftayda iyo waktigayga iyo wax walba u huro ciddii aanu ku celoobayno inaan tolkay ka qabto hogga oo badbaadiyo oo dantooda u sheego u naseexeeyo dee waxbaa walba isuguma kaaya jirin taana intaasaan ku dhaafaya ereyga kale marka qof loo arko imika uu maslaxadda caamkaa ka hadlo ama arrimaha qaarkood oo aan la jeclaysan inuu ka hadlo boqolaal magac baa loo bixinayaa oo ururaa lagu calaamadinayaa xisbiyaa lagu calaamadinayaa waa wax iska caadiya taasi wax dhibi kuma jiraan anna dhib uma arko danna kama lihi waxaa danta ka leeyahay waxa weeye waa inaan wixii aan isleeyahay dan baa ku jirta inaan dadkayga u sheego oo anigana xujadii xagga ilaahayna ay iga dhacdo tolkayna xilligii ay munaasabka ahayd iyo dadkayga taladaydu inay gaadho inaan markaa ku guulaysto unbaa muhiima taana kelmaddaasaan kaga baxayaa kelmadda kale aan raacinaya waxa weeye walaalaha dhulbaante beesha aanu deriska nahay marar badan bay nabadgelye ku baaqeen cuqaashoodaa ku baaqay culimmadaa ku baaqay garaadadaa ku baaqay waa wax wanaagsan nabaddu waa noloshii waxaan leeyahay iyagana dee magaalaa gubteen oo mashaakilka ugu weyn ee labada reer dhex yaallaba waxaan odhan karayaa magaaladaas ficilka ka dhacay ayaa qayb weyn ka ah dee waxaa laydinka doonayaa inay nabaddu idinka dhab tahay dee ficilkeedii inay idinka muuqato yaa loo baahan yahay nabaddu wax laga shaqeeyo iyada ugu fiicani waxaan tolkay leeyahay adduunyadu horumar bay ku tartamaysaa iyo ma fiican bay idinla tahay miyaanay ka fiicnayn colaad inaynu qoriluud iyo oog iyo meelaha iyo buqdharkayn iyo meelaha la midkaa inaynu ka dhigno dekado qalalan aynu geyno raashinka iyo badeecadda aynu xoolaha iibsanno oo halkaynu dhaawaca kala guri lahayn miyaanay ka fiicnayn inaynu lacagta kala guro iyo badeecadda waxaan leeyahay